السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا السيدة أكاديمية كورس كنت حنا كوبريني programming language لو يقان دارت كانوا 10 كيني ستحات chapter كأفراد وأن كوبران دون وحلا يقان late كو والنظام كله الله قرا هذا أما وحوي فارية بلسك وحلا يقان absent أما صاحب سامان الله قرا مركب practical كن كويك دونا وقولنا حتى جاي مركب بينكات تدنا حلا right click new file 03 والليسن كيني ستحات وحنا الله يقان مركب late.dart وأي مركا يقص على إكسبلورر كا void main حلا مركا وأي ليد كاتبا إسقى وشيت كيس محاوي هاي ليد كسر عادي كان normal variables كأهي وحصورت وحقصبت صنعت القرطة string حتى القرطة message وحقصبا message كاسي إن هذا حويان add value add سيسو يعني نلنا لبالك وحلا يقانا نلنا لبالك وحلاسمة value إن هذا حويان أما قرار هالنقطة أما النمبر هالنقطة إن تجلسوا أي قصبة. وي variable النوع الله يقانا نلك نلبالك قانا ينا وحيدا الصورة جلأ أو أقبل يا variable كاسي إلا ولي إن هذا حويان variable أن لجلين لكن ليت كوا between مركو روح وقلانا يا إن هذا حويان value أن تجلين لكن إلا ولي ما أقولنا إنه مرنا ضص النالك أو كلام مركا شيء قدوك تهي إنه وحوين دتروح للجلين دونه مركا تصالحك سقان النالك وتقابل كل لغة وهرين إنه إجنو وحلا يا مركا strings العادي وحلا مركا كلمة اللي keyword اللي يغني late بنكوريسينيا كده وحلا مركا string كده وحلا مركا message هذا value مانجلين هذا نلاحظ مركا هدو أيان جلينيا value مركا تصالح وحلا هو message ده وحلا equal وحلا مركا welcome to Dart. وي marka hore markaan declaration sameeyay kadib baan waxa weeyaan aan u sameeyay wax loo yaqaan assignment aan soo yaani aan qoraalka aan soo gelinay marka wuxuu aqbalay marka qaar waxa ku dhacay karaysa khaasatan marka practicalka 10da advanced kan ku baran doonaaye marba waxa tusaale marka la xiriirisa API-yada oo kale marba value-ga iyo daatada aad meel kale aad ka sugaysaa marka daatada aad sugayso yaani null haday iska noqoto mar walba marka meesha data adigu sugi xitaa markay timaado null bal iska ahaanaysa ayo marka taa wax weeyaan wixii null bu noqonaya haddaad variable ka caadiga sida default ka qaatana waa requirement inaad datada la helaa laakiin markaas oo kale waxa isticmaalaysaa late waxa leedahay xogta waan sugayaa kadib markay timaado ayaan marka aan gelin doonaa marka tusaale ka dhahdo dhinac marka laga eego xagga waxay ku soo baragta halka dambe ku arki doonaa laakiin null balka qaabkii loo yiri qoriyo kale marka qaar way iska kaagaan karaysaa laakiin ujeedka guud waxa weeyaan marka hore variable ka sameynaysaa adigoo keywordkii nullka aan aqbal tusaale marka hadaan ka saari lahaa kan hadaan ka saaro waxa weeyaan string kan kaliya aan idhaahdo hadda waa si aqbal karim ka qaab ahaan isku soo dhaw yihiin laakiin waxa ogsoonataa hadii kan imkaan ka masaxo مثلا on si saan idhaahdo on daabacaya message-ka suurtagal ma markiiba error bay soo baxaya waayo shaygan waa non nullable haddii laakiin aan idhaahdo question mark baan halkaan geliyay oo sidan baan ka dhigay tiina wuxuu qaadanayaa qasaba message-kii inuu wax weyn nullable u noqdo marka rana hadda tiraahdo bila message marka iman nullable buu si automatic u qaadanaya laakiin markaan ogahay shaygu waxa weeyaan inuu aan nullable imika inuu yahay laakiin hadhow toola uu iman doono waxa weeyaan value-gu ayaa marka keyword loo yaqaan late baan qorayaa kadib san kuma deyn karo variable ka caadiga uu qaadanayaa waa in marka aan declaration-kii ama waxa jeeda waa in marka aan u assign garaya xogti هذا welcome to sit way marka keyword-ka laga horreysay loo yaqaan late ujeedkiisuna waxa weeyaan markaad variable-ka aad qorto waxaad hadhow toole aad ballan qaadaysaa inaanu marnaan doonin oo aad value-ga aad gelin doonto haddii value aad gelin weydo marka error ba marka runtime-ka ku soo baxaya marka farqiga guud u dhaxeeyo waxa weeyaan string-ga isagu waxa weeyaan ilaa weligii waa u marnaan karaa laakiin late-ku ma aqbalo inuu ilaa weligii marnaado tusaale marka waxaad ka soo qaadaysaa bogus oo kale boguskaas haddii uu yahay nullable waxaad leedahay boguskaas ilaa weligii waa iska marnaanayaa haddii laakiin late uu yahay waxaad leedahay boguskan hadda waa uu maran yahay laakiin hadhow tolan alaab ku guranaya marka qaabkaas ayuu shaqaynayaa haddii marka tusaale koyro yaroo kooban isaga aanu ka bixino مثلا waxaan leeyahay marka hadhow inta badan daytime-ka API-yada buu ku fiican marka practical plan laakiin aad si ogaato baynu ugu talagalnay string tusaale data xog baynu sugaynaa waxaan leeyahay marka print waxa soo daabacdaa مثلا waxaan leeyahay program started marka programkii waxa weeye uu bilaabmay kadib waxaan leeyahay marka datada markii hore waa nullable bay waxaan late bay ahayd datada way imaneysay kadib waxaan leeyahay marka tusaale ahaan data is ready hadda waa diyaar kadib marka waxa leeyahay print waxa soo daabacdaa datada marka si kale API-yada ayaa inta badan loo isticmaalaa ugu horeyn
xogta markaa programka uu startmay tusaalahan waxaa leeyahay markaa run programka markaa waxa weeyaan wuu start yacni wuu bilaabmay kadib daatadii baa la sugayaa daatadii markaa API bay noqon karaysaa iman doona laakiin API-ga iman doona nullable ma qaadanayo hadduu nullable yahay dhowtolo cillado kala imanaya sidoo kaleeto variablekii sida caadigeena looma qorin requirementka qasabkaagama dhigayo markaa late wuxuu sugi doonaa daatada iman doonta laakiin waxaa qasaba mar kasta inay daata meeshaas ay timaado kadib markaa soo daawacaya markaa lateka inta badan API-yada waad sugaysaa deedna wax laga yaaba timekaasi inuu sugo kadib marka ay timaado ayuu markaa waxaweye soo daawacay marka practical baynu arki doonaa laakiin inaad keyword kasii warhayso keywordka loo yaqaano late isagana waxa weeyaan aad ayay markaa muhiim u tahay marka 3 cashar oo aan kusoo gabagabayna waxa weeyaan majwalkeena afraad halkaas markaa waxa weeyaan ku joojina insha Allah